qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa ay shacabka ugu baaqeen in ay salaadaha ku tukadaan guryahooda inta uu dalka ka jiro xanuunka COVID-19. bayaankan ay soo saartay culimadu waxa warbaahinta u akhriyay Sheekh Cabdirasaaq Albani waxaana uu yiri maanta oo taariikhdu tahay 18 Ramadaan 1441 hijriyada kuna beegan 11 bisha shanaad 2020 annagoo ka mid ah culimada Soomaaliland waxaanu shirkan jaraa'id u qabanay inaanu bulshada u sheegno dhowr arrimood oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 oo kala ah sidan soo socda. kadib markii ay caddaatay in xanuunkani ku faafayo bulshada dhexdeeda intii la baadhayna dad badan laga helay dadna u dhinteen isla markaana goobaha uu ku faafayo ay ka mid tahay meelaha lagu kulmo sida suuqyada, maqaaxiyaha, sariibadaha, goobaha caafimaadka iyo goobaha cibaadada. sidaa darteed waxaanu bulshada u sheegaynaa kow inay joojiyaan tegidda goobaha lagu kulmo wixii lagama maarmaana mooyaane iyagoo markaana u dhaqmaya qaab u adeegaya caafimaadkooda. arrintaasina waxay ka mid tahay feejignaanta iyo is-ilaalinta shareecadeenna suuban ay ina farayso sida nabigeenu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam laa yuuridu mumridun calaa musixin. laba waxaa ku waajib ah sharci ahaan qofkii xanuunkan qaba ama isaga shakiya inaanu dadka dhex gelin oo uu iskarantiimeeyo si aanu ugu gudbin xanuunkan dadka kale. haddii uu qof xanuunkan qabaa uu u badheedho faafinta xanuunkan waa uu ku dambaabaya. saddex shareecadeennu waxay ilaalisaa nafta bini aadmiga waxayna waajibisay ka fogaanshaha wixii sababi kara halaaga nafta iyo waxyeeladeeda sida Allah yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima wa qaala tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. waxaa axaadiista nebiga ku cad in xaaladda xanuunada faafa yimaadaan la isdhowro oo la is-ilaaliyo. waxaana nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam fira min almajduum firaaraka min alasad. wuxuu kaloo yidhi laa yuuridu mumridun calaa musix. isla markaana waxaa qawaacidda shareecada ka mid ah qaacidada la yidhaahdo laa darara walaa diraar. waxaana ka farcama qaacidada kale ee odhanaysa ina adarara yudfacu qadra alimkaan. sidaa darteed annagoo ka duulayna daliilada kor ku xusan iyo fadwada culimada ee xaaladdan ku saabsan waxaan ummadda u sheegaynaa inay ummadda u bannaan tahay in salaadaha faralka iyo taraawiixda iyo tahajudka ay ku tukadaan guryahooda inta ay jirto xaaladda xanuunkani faafayo maadaama ay jirto cabsi dhab ah oo laga qabo fiditaanka xanuunka COVID-19. isu imaatinkuna uu ka mid yahay asbaabaha u waaweyn ee uu xanuunkani ku faafo. number 4 waxaanu si gaara ugu sheegaynaa dadka waayeelka ah kuwa qaba xanuunada culus dumarka iyo caruurta inay ku tukadaan guryahooda aadna uga feejignaadaan dhexgalka dadka. number 5 qofka muslimka ah ee u dhinta xanuunkan waxaa waajib ah in loo maydho laguna tukado sida ugu suurtagalsan iyadoo la raacayo talooyinka khubarada caafimaadka. number 6 waxaan kula dardaarmaynaa dadkeena dhammaan
xaaladan taagan inay alle wixii dembiga uga toobad keenaan oo ay tala saartaan isla markaana farabadiyaan ducada iyo cibaadooyinka kala duwan xoojiyaanna rajada ay ka qabaan farajka alle iskana ilaaliyaan baqaha iyo argagaxa faraha badan leh iyaga oo aan ka tegaynin asbaabaha isdhowrista. 7 xaaladan adag ee ka dhalatay xanuunkan COVID-19 waxa aanu ku gubaabinaynaa dhammaan dadweynaha inay iscaawiyaan oo isu naxariistaan. nabiguna wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsamaa. ugu dambeyn waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dadaalka ay ugu jirto xakamaynta cudurka COVID-19. waxaanuna ku gubaabinaynaa dadweynaha inay u dhaganuglaadaan talooyinka ka imanaya guddida qaran ee cudurka loo magacaabay iyo fariimaha wasaaradda caafimaadka oo ay u dhaganuglaadaan dhexdooda sida adduunyada kaleba ay isu bastirisay ee ay isu maqlayso wixii talooyin ah ee aysa siinayaan. wabilaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waayahay masaajidada in la xidho ayaga maxaa idinka meel yaalla culimo? masaajidada xidhidooda waxaa leh oo go-aankeeda iska leh wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyadu marka ay u aragto in la xidho dhammaan iyadoo xaaladda qiimeyneysa iyada ayaa go-aanka iska leh sifo rasmiga inay usoo saarto, laakiin wixii tala bixin ahaa halkan ayaan anagu ugu dhammaynay. cabdiraxiin muuli ismaaciil, shabakadda wararka Ilays News, magaalada Hargeysa.